yaheena maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka ku wareystay garaad jaamac wuxuuna ugu horeyn weydiiyey bal wuxuu u arko ama wuxuu uga jawaabayo garaad saleebaan garaad maxamed. garaad saleebaan tegitaankiisa kama aanan warqabin garow uu tegey waa magaalo soomaaliyeed nasiib darro haddii garaadku uu sidaa yidhi garaadku dadkanu garaad ku ahaa annagu geelley baanu nahay oo waxaanu nidhaahnaa geela waxaanu uga haysnaa xasiid awrkeeda diidee awr kale u oloshaa afartada dad laga saar waa abaaha seerta. annagu maadaamaanu madax dhaqameed nahay inaanu nabadgelyada ka wada shaqayno oo iska kaashano nabadgelyadu bini aadamka u baahan ku nool dunyada u baahan oo diinta u baahan oo ilaahay hadduu kuu roon yahay dadnimada u baahan arrintaa in wax kastoo lagu kala duwan yahay in nabadgelyada aan lagu kala duwanayn lagu wada shaqeeyo taa waa isla qaadanay waanu isla dhaabadaynay halkan la isku qaadayay beesha isaaq anigu waa kala reebaya beesha isaaq ciidamadoodu waa wada joogaan waa mid walba waxaa ka jooga intii ciidamada SNM kaga jirtay beesha sida gaarkaan u tilmaamaya ee isaaq waxa weeye waa habar jeclo waxaynu ka warqabnaa habar jeclo in maalin kasta tuulooyinkooda laga soo guro ciidamo dheeraada oo lagu xoojinayo kuwa dhulkeena xoogga ku haysta waxaanu u sheegaynaa arrintaa inaannu ka warqabno inaanaan ilaaweyn inaannu ka aargoosan doonno waxa weeye wada hadalka u bilaabmay maamulka khaatumo iyo Somaliland in aanu marka hore dhiiri gelinayno in aanu taageerayno in aanu garab taaganahay oo mas'uuliyiinta hawsha wada ee madaxda u ah aanu ku dhiiri gelinayno ku garab galayno u ballan qaadayno sida dhibka jira loo soo afjari lahaa adigu ilaa shalay barqadii iyo maantaba waa joognay nabadgelyaanu qabnaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin marka hore waxaanu uga mahadnaqaynaa garaadka gogosha iyo soo dhaweynta iyo sida karaamada iyo sharafta leh ee naloo qabtay way soo gabagabowday saaxdheer baanu joognaa hoolkii shirarka ee guriga garaadka ayaanu joognaa ayaanu salaadiinta waanu garaadada u nahay waxaanu ka rabnaa inaad soo taageertaan ama niyadiina gelisaan ama ogaataan inay maanta dadkanu meel u wada jeedaan dhaqankii meel u wada jeedo afartan guuradii weeye ay isku yiraahdeen tala xumo noocan oo kala intay sameeyeen noqonaysa habar jeclo colaadanay bilowday burcay ku ekaanaysaa markay ugu sokayso isaaq intooda kale waanu ka necabnahay dagaalka waa uga badinaynaa dilka waa uga badinaynaa colaadda waa uga badinaynaa kooda yar iyo kooda weyn midna dayn mayno habar jeclo waxay inoola bareertay dagaal cad baynu ula bareeraynaa ilaahayna waxaynu ka baryaynaa inuu inaga guuleeyo way soo gabagabowday saaxdheer baanu joognaa hoolkii shirarka ee guriga garaadka ayaanu joognaa dad baa meelaha waxay ka yiraahdaan ina khaliif galeer iyo in cali garaad baa meelo u socdo oo meelo noo wada waxaan u xaqiijinayaa ninna inaanaan gunnimo kula tartamayn linkii gunnimo doonaya ee u baxbaxsanaya ee reero kalaan hoos galayaale waa laygu haystaa waa kuu fasaxanta wallaahi waxba ku fali mayno wallaahi u huguroon mayno wallaahi cid kale hoos geli mayno taladaa dhulbahante ee baraxala ee aan cid kale hoos tegin waxaan ahayn waxba ku fali mayno waxa la